bismillaahi raxmaani raxiim macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallis Real Estate walaalayaal soo dhowaada ku soo dhowaada gacmo furan ku soo dhowaada qalbi furan ku soo dhowaada adeeg hufan oo idin raali geliya haddaba walaalayaal sidaa nooga barateenba waxaa maanta mar kale idiin soo gudbinaynaa dhul iib ah walaalayaal ku soo dhowaada daawasho wacan ka faa'iidaysi wacan waxaa rajeynayaa inaad ka heli doontaan insha allahu tacaala walaalayaal waxaa iib ah boos bannaan oo ah dhulka aan hadda joogno weliba meesha hadda ee kaamirada hayso waa boos meel fiican ku yaalla dhinacyada dhan ay ka dhisan yihiin oo jeedan xaafadan quruxda badan leh ee magaaladii hore ah ayuu ku yaallaa xaafad hore inay tahay waxaa ka garanaysaa guryaha sarta ah ee qadiimka ah ee ku yaalla marka walaalayaal soo dhowaada waxaan guda gelayaa xogta dhulkan iibka ah oo dhammaystiran insha allahu tacaala ee ka bogasho wacan walaalayaal dhulka iibka ah waxuu ku dhegan gurigan rinjiga cad uu marsan yahay gadaanle waa boos kale oo bannaan haddii aan ku bilaabo xogta dhulkan iibka ah meesha uu ku yaallo oo tilmaan fiican idinka siiyo walaalayaal waxa uu ku yaallaa dhulkan iibka ah magaalada muqdishona waxa uga sii yaallaa degmada hilwaana waxa uga sii yaallaa xaafadda loo yaqaano alcadaala waxay ka mid tahay xaafadaha waaweyn ee degmada hurwaa waa xaafadda ka dambeysa suuqa hurwaay kowgii hore markaa ka timaada dhanka laamigan balcad waxaa kuu soo hormarayo xaafadda suuqa hurwaa oo saldhigay ku yaallaan kadibna waxaa ku xigta xaafadan alcadaala oo ah xaafad ka mid a xaafadihii hore ee magaalada muqdisho ilaa xilligii dowladdii kacaanka waa la deganaa xaafadan booskan haddaa tilmaan kasii bixiyo jidka ka yimaada suuqa ee dhankaas iyo busteejada alcadaala soo aada ayuu wuxuu ka yahay booska afaraad jidkaas oo ah jid aada u weyn oo waddo ballaaran ah mustaqbalka dhowna qorshaha uu ku jiro in laga dhigi rabo waddo laami ah oo ay xaafadan yeelato degmada hilwaa waxaa hadda dhex mara laamiga soos iyo laamigan kale ee kala qaybiya degmooyinka hilwaa iyo yaaqshiid ee balcad aada marka laamigan wuxuu noqonayaa laami kale oo fursad u ah oo bulshada deegaanka u fududeeya isu socodka degmada dhexdeeda iyo inuu ku xiro degmooyinka kale ee gobolka banaadir marka runtii booskan iibka walaalayaal waa boos ku yaalla meel istiraatiiji ah jidkan weyn ayaa hormara waddo fiican ayuu saareen oo waddo weyn ah sidoo kale 4 boos kadibna jidkaas kale ee laamiga loo qorsheeyay ayaa ka mara marka la iskama heli karo waxaa sidoo kale u dheereen suuqi hilwaa haddii aan tilmaamo waddada dhanka loo leexanayo ama dhanka uu ka xigo jidka alcadaala waxa uu ka xigaa dhanka koonfureed dhankaas koonfureed waxaa kaasii xigto xaafadda loo yaqaano jamhuuriya ee degmada kaaraan marka soo dhowaada walaalayaal inaad tilmaanteeda fahanteen ayaa rajeynayaa haddii aan ka hadlo cabirka dhulkan iibka ah oo ku fadhiyo walaalayaal dhulkan iibka ah waa 20 lagu dhufta 15 ama finti barkuundisho dadka qaarkood siday u yaqaanaan wejiga hore waxa uu yahay 15 mitir dhirirkana waxa uu yahay 20 mitir marka jidkan wuxuu ka heystaa 15 mitir gadaalna waxa uu yahay 20 mitir runtii waa cabir macquul ah oo cabir aada u weyn ah oo haddii loo baahdana laga dhigi karo 2 boos oo kiiba uu yahay 7.5 lagu dhufta 20 yacni 2 nus ayaa ula jeedaa nus kastana markaas aa ka dhisi karto ilaa 4 qol iyadoo shirkad Dallis ee diyaar ku tahay howlaha dhismahan inay kuu fududeyso insha allahu tacaala walaalayaal haddii aan ka hadlo dhulkan iibka ah walaalayaal dhulkan iibka ah waa 20 lagu dhufta 15 ama finti barkuundisho dadka qaarkood siday u yaqaanaan wejiga hore waxa uu ka heystaa 15 mitir dhirirkana waxa uu yahay 20 mitir gadaalna waxa uu yahay 20 mitir runtii waa cabir macquul ah oo cabir aada u weyn ah oo haddii loo baahdana laga dhigi karo 2 boos oo kiiba uu yahay 7.5 lagu dhufta 20 yacni 2 nus ayaa ula jeedaa nus kastana markaas aa ka dhisi karto ilaa 4 qol iyadoo shirkad Dallis ee diyaar ku tahay howlaha dhismahan inay kuu fududeyso insha allahu tacaala walaalayaal haddii aan ka hadlo
jidadka uu leeyahay booskaani sidaad ka aragtaan muuqaalkaba waa hal jidle. waxaa hormarta hal wado oo aada u weyn. wadadana waxay ka martaa dhanka bari, marka runtii waa boos aada u fiican. waa hal jidle bari ujeed weliba ah. bari ujeedka waa dhulka loogu jecel yahay oo qoraxda ayna is arkeynin. familkii gurigan dega waxaa waaye qorax kuleelkeed ma ka sheega doonaan, maxaa yeele galabtii haddana wuxuu yeelanayaa hoos ama jalbeeb aada u fiican oo lagu nasan karo. marka waa nuuca loogu jecel yahay. ka faa'iideysta ayaa laydinkaga soo hormarin walaalayaal. sidoo kale haddii aan ka hadlo dhanka dukumentiga oo iyadana ah meesha ugu muhiimsan ama waxa ugu muhiimsan ee laga fiiriyo dhul ama guri marka la gadanayo, walaalayaal dhulkani dukumentigiisa waa nadiif. waa dukumentiyadii hore ee Maxamed Siyaad Barre. xaafadan waxaa la cabiray xilligii dowladii kacaanka ee wadanka ka jirtay. marka runtii waa dukumenti aada u fiican. warqadihiisa oo dhan way u dhan yihiin. nootaayo alla midaa jeceshahay ayaa lagu geenayaa si lagaaga hubiyo. xagga dukumentiga walaalayaal wax walwal ah kama qabtaan. ugu dambeyntii walaalayaal, haddii aan ka hadlo dhanka qiimaha ama lacagta lagu rabo dhulkan iibka ah, walaalayaal waxaa lagu rabaa 50,000 oo doolarka Mareykanka ah oo isku dhammaad ah, macal dalaal ah iyo heshiis. wixii macquul ah waa laga faragelinayaa insha Allahu tacaala. walaalayaal runtii qiimaha oo gurigan ku fadhiyo waa qiimo macquul ah haddii loo fiiriyo cabirka oo weyn. maxaa yeele xaafadan waxaa jira cabir ah 15 marka kan waa 15 lagu dhufto 20. iyo sidoo kale jidka uu haysto wado weyn ah. sidoo kale jayga weyn Alcadaala uu aada ugu dhow yahay, uu ka yahay booska afaraad. waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabaha dhulkan qiimihiisa kor u qaadayo. ma aha lacagta inay badinayso, waa ujeedaan wadada sida ay tahay, laakiin dhulka ayay waxay u yeelaysaa qiimo oo dhul fiican ayay ka dhigaysaa. sidoo kale waa bari ujeed. marka runtii qiimahaas waa macquul. haddii aad booskan ku qanacdidna waa laga faragelinayaa insha Allahu tacaala. waxaa dhir beec meesha ka bilowda kuma dhammaado. si fiican ayaa laga faragelinaya oo lagu soo dhaweynayaa. marka soo dhawaa walaal, ka faa'iideyso fursadan ay shirkadda Dallis idiin soo gudbinayso. haddii aad eridan dhul ku leedahay ama haddii aad dhul u baahan tahay, iyo sidoo kale dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir, nala soo xiriir lambarada meesha ku qoran. soo wac, waa lagu soo dhaweynayaa. ugu dambeyntii walaalayaal, waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha shirkadda Dallis Real Estate. waxaan idinka codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo dhahdaan, gambaleelkan aad furataan, idinkoo mahadsan si aad ula socotaan waxyaabahan mustaqbalka soo gelino. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.